dugsiyada nuuraddiin schools سدني وحويان شنات بنقطة سبعة رجينيا الجبتر كين skeleton and muscular system وعن رجينيا سن وضع سعنا بقينا نسوق لما يني قيبتي هراء axial skeleton and a particular skeleton then حسدنا واحد رجينيا حسدي كهوريسي إن نسوق ترينا لفيل ورجري axial skeleton كو أو نشجعني axial skeleton كو جودهان إن أهاين 80 بونس سيدة تنافات واي هل كان واحد نوجي يلفت على هذا scalp إذا واحد نشجنا 22 بونس والله بيلا بطلع فوق وياه. إذا واحد هوسي ما ده cranium بونس هي face. cranium بونس واحد اللي هذا وسديد لفوق وياه. face كا لفا كتير أنا يقولنا وافريت 8 plus 14. 8 plus 14 لبضع مركز لسكوت رانا و 22 وياه. hierarchy أو 1 ossicles أو 6 vertebral column أو 26 sternum ama breast ma lafta barta ku taala ee sakaarka la yiraahdo oo iyaduna 1 ah ee ribs oo 24 ah total number of bones aynu leenahay waa 80 bones behind marka ka isaga halkan ka nimaadno bal maanta hadda waxaan isla eegi doonaa ka ilaa xiisadooda way ka sheekeynayeen the bones of adult skeletal system gaar ahaan waxaan eegi doonaa appendicular skeletonka oo isagana lagu sheego appendicular skeletonka waxa la yiraahdaa wuxuu ahaa waa 126 bones 126 lafood iyagana tirinana markaa clavicle lafa kalxanta ku yaala clavicle waa halka iyo halka weeyaan markaa waa laba 1 iyo 2 scapula lafta garabka ku taala waa halka weeyaan markaa iyaduna waa 2 upper limbs kaynu eegno humerus waa lafta gacanta ku taala barta ku taala weeyaan markaa ee ilbowga ama suxulka ka sareysa halkana garabka ka soo noqonaysa humerus baa la yiraahdaa labadeena gacmood waa 2 ulna and radius halka labaynu ku haysanaa ulna iyo radius ulna and radius ulnadu waa laba radiuskuna waa laba markaa carpus dhinacaasina waa 8 carpus waxay haayeen haddaan af Soomaali ku sheegno waa lafaha laga helo inta curcurka lafaha laga helo ayaa waxa la yiraahdaa carpus baa la yiraahdaa xagaasi waa 8 lafood baa ku jira dhinacana 8 lafood baa ku jira waa 16 weeyaan metacarpus lafaha ku jira baabacada dushooda sare taas waa baabacadii Soomaa xagga uga sare lafaha ku jira iyagana waxa la yiraahdaa metacarpus baa la yiraahdaa waa 10 lafood weeyaan marka phalanges marka aynu leenahay phalanges-kuna waa 28 oo 28 lafood weeyaan markaa inta marka la isku daro 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 1 2 3 4 5 waa 10 16 sige 10 sige 16 sige waa 64 64 bal idinku isku geeya 64 weeyaan marka halkaas waxaan u gudbi doonaa dhinaca belfiga miskaha ayaynu gudbaynaa belfic riddle misku marka la yiraahdo dhinacaasna dhinacaas waa 2 bay noqonaya markaa lower limbs adimada hoose aynu eegno femurka oo ah lafta ugu dheer ee boodada ku taala iyaduna waa labadeena lugood baa looga jeedaa batilaha oo ah lafaha jilibka ku yaala iyaguna waa 2 fibula waa 2 tibia waa 2 tarsus waa lafaha kuraanta ku yaala weeyaan iyagu waa 14 eeg hadda u fiirsada tarsus marka la yiraahdo tarsus waa imisa waa 14 waa 14 hadda dhinaca ta u dhiganta ee xagga gacanta ah oo la yiraahdo carpaliska waa imisa isagu waa 16 weeyaan markaa laakiin tarsusku waa 14 waa 14 marka tan laba dheertaan la socdo markaa metatarsuskuna waa 10 halka metacarpalisku ay tahay 10 phalangesku waa 28 phalangesku dhinacana waa 28 weeyaan markaa dhinacana waxay noqonaysaa 62 dhinacana waxay noqonaysaa 64 64 plus 62 labada marka la isku daro waa 126 bones waa 126 lafood
126 points 80 hore u sigee waa 206 points halka waxaad iga haysaa dhammaan lafihii oo dhan waad iga haysaa markaa exercise part walna ku xiga casharka qaybteena kale intaynaan bilaabin exercise kaas laga soo shaqeynaya waa question 1 2 3 4 5 6 shanta su'aalood baan insha Allah taala ee qaybta ka soo shaqeynaysaa marka inta hore introduction bay ahayd waxaanu eegi doonaa haddaba casharkeena inoo soo socda oo aynu bilaabi doono waxa la yiraahdaa casharka soo socda waxa la yiraahdaa joints baa la yiraahdaa haddaba joints intaynaan bilaabin waa in aynu eegno objectives ka markaa upon the successful completion of this lesson you would be able to waa inaad awood u yeelato inaad ka jawaabi kartid ama inaad define the joint squeeze ama labatan maxay tahay identifying waa inaad qeexda ama caddaysaa functions ay joints qabtaan saddex distinguish waa inaad kala sheegtaa similarity iyo difference ka loo gadaa marka distinguish waa kala duwanaanshaha weeyaan marka between u dhaxeeya different classification of joints kala duwan noocyinta kala yihiin for qodobka afraad oo objectiveskeena waxaa ka mid ah identifying degree of freedom for different joints so human body macnaha movementka ay sameeyaan inta nooc ee kala duwan ee movement ay dhici kara weeyaan marka way aad ila socdo daba inta maanta ka bilaabay waxaanu bilaabi doonaa wax la yiraahdo joints laabato squeeze laba lafood meel isku yimaadaan laf baa meel ka imanaysa laf kala laba lafood markay laba lafood guud ahaan meesha isku yimaadaan ayaa waxa la yiraahdaa waa maxay waa joints baa la yiraahdaa marka waa laabato joints are formed when two or more bones meet joints are formed joints waxay samaysmaan when two marka laba lafood or more bones iyo wax ka badanba meet ay kulmaan laba lafood iyo wax ka badan marka ay kulmaan ayaan oran karnaa waa maxay waa joints baa la yiraahdaa marka waa laba lafood meesha isku yimaadaan in some joints ka qayb ka mid ah the bones of tightly bound together lafo aad bay isku dhow yihiin ama isku urursan yihiin breathing a little waxay sameeyaan dhaqdhaqaaq yar or no movement qaarna ma dhaqaaqaan ba movement ka macnaha qaar ba waxay sameeyaan movement aad u kooban bay sameeyaan lafaha qaarna movement ba yaraatay ma sameeyaan sida daraadeed waxa la yiraahdaa some joints ayaa waxay sameeyaan joints ka qayb ka mid ah ayaa waxay sameeyaan dhaqdhaqaaq xadidan breathing little bay sameeyaan marka dhaqdhaqaaq yar bay sameeyaan or ama no movement qaarna ma dhaqaaq ma sameeyaan guud ahaanba other joints nooca kale joints ayna provide wide varying degree of movement depending on their structure and the decrease of the movement qaar kale ka midna waxay sameeyaan waa maxay waxay sameeyaan dhaqdhaqaaq aad u kala duwan bay sameeyaan marka waxay ku xidhan tahay structure-ka ay laftu leedahay structure-ka ayay ku xidhan tahay marka structure-ka iyo wax la yiraahdo degree movement nooca dhaqdhaqaaqa ah ee ay lafteena sameynaysa marka okay intaas waa maxay waa gundhiga cashirkeena marka waxaan joints waa marka laba lafood meesha isku yimaadaan joints hadda waxa la yiraahdo joints are classified into two main groups laba nooc oo waaweyn ba loo kala qaybay joints marka joints hadii la yiraahdo waxaan u kala qaybin doonaa waa maxay laba ba loo kala qaybinaya marka ugu horeysa waxa la yiraahdo waa maxay waa immovable joints baa la yiraahdaa immovable joints bayna odhanaynaa marka waxaan oran karnaa waa maxay jointka koobaad maxaa la yiraahdaa waa immovable joints baa la yiraahdaa marka waayahay marka waxa la joints are classifying joints waxa loo kala saari doonaa into the following two groups laba group oo waaweyn ka ugu horeeya waxa la yiraahdaa waa maxay waa immovable joints baa la yiraahdaa marka waa joints immovable ka aan sameeyninba si kale marka loo dhigo maxaa la yiraahdaa waa fixed joints waa joints haba yaraatay wax dhaqdhaqaaqa aan sameeynin baa la yiraahdaa iyo laba ka labaadna waxa la yiraahdaa waa maxay waa movable ka labaadna waxa la yiraahdaa waa movable joints baa la yiraahdaa marka halka arday waxaad ka fahmaysaa marka joints la yiraahdo ama laabato ama squeeze marka la yiraahdo laba nooc ma kala qaybinana inuu noqdo immovable mid aan dhaqdhaqaaq sameeynin ba oo fixed la yiraahdo meeshiisa u taagan oo haba yaraatay wax movement aan sameeynin iyo laba inuu noqdo wax la yiraahdo movable labadaas suman xiisadan insha Allah ku beeskaroobaysa marka aan ugu horeysiino ka hore aynu qaadanaynaa marka number 1 ka koobaad wuxuu noo noqonayaa waa maxay waa immovable joints baa la yiraahdaa waa joints-ka aan dhaqdhaqaaq sameeyninba ama si kale marka loo dhigo waxa la yiraahdaa waa maxay waa fixed joints baa la yiraahdaa marka fixed joints waa maxay waa joints-ka aan halkee laga helaa daba joints-ka aan dhaqdhaqaaq sameeynin halkee laga helaa in these joints hadaba joints-kan ama laabatooyinkan the bones are held together by short connective tissue waxa isku haya
oo isku xaji doona waxa la yiraahdo connective tissue nooca tissue-ga loo yaqaan connective-ka macnaha connective tissue waa tissue-ga isku xidho laba xubnood oo wada shaqeyn leh ay isku xidhaan marka example ankylosing waxa kamid ah tusaalayaasha markaa surgeries joints-ka loo yaqaan surgeries-kaasi markaa waa maxay that links the bones of the cranium together waa kuwa isku xidha lafaha ku yaala hagoogta maskaxda isku xidha oo waynaga soo qaadan inay jiraan cranium bones inay fara badan yihiin oo parietal-ki iyo temporal bones iyo occipital-ki iyo dhammaantood boneska bartaaga oo 8 bones ah joints-ka isku xidha ee dhammaantood isku haya waxa loo yaqaan surgeries baa la yiraahdaa marka surgeries that link the bones of cranium together cranium isku haynaya marka weey diagram bay noo meesha noogu yaala sawirka meesha noogu yaala wuxuu inoo sheegayaa ama sawirkaasi wuxuu inoo tilmaamayaa laftan xagga sare ku taala waa maxay waa laftii iskalkii weeyaan marka cranium bones ba bartaa ku yaala maadaama oo halka cranium bones ay noogu yaalaan okay oo cranium bones kuna ay fara badan yihiin oo lafa fara badan ay ku ilaa 8 lafood ay yihiin joint-ka isku xidha oo guud ahaan isku xidhi doona waxa la yiraahdo waa maxay surgeries baa la yiraahdaa marka surgeries joint-kaasi waxa la yiraahdaa waa maxay joint-kaasi waxaan oran karnaa waa maxay surgeries baa la oranaya marka kaasi waa mid aynu gudubno kaasi wuxuu ahaa immovable waa kii aan dhaqaaq haba yarata sameyn number 2 movable joints joints-ka haddaba movable ka sameeya waa kuwe way fara badan yihiin Gliding joints ka uga horeeya gliding joints also called sliding joints joints kan waa nooc sameeya little movement dhaqdhaqaaq xadidan buu sameeyaa marka ma badna waa aad buu kooban yahay weeyaan marka the more is glide over to one another result in little movement lafu way isdul korayaan ama way saas isku dhaafayaan maxay sameyn doonaa marka result in a little movement waxay sameyn doonaa wax la yiraahdo little movement dhaqdhaqaaq aan badnayn bay sameynayaan little movement haddaba movement ka kooban ee ay sameyn doonaa wax loo yaqaan waa gliding joints baa la yiraahdaa example baynu baahanahay marka gliding joint waxaan nidhi hal example maadaama sheegnay inuu yahay movement kooban oo sameynayo we need example tusaalayaal baynu baahanahay marka gliding joints arsin waxa lagu arkaa vertebrae of vertebral column ka lagu arkaa kow waa qodobtaas vertebral column-kana waa lagu arkayaa number 2 waxaa kaloo lagu arkaa halkee wrist curcurka ama cumaacusha intaa yar ayaa lagu arkaa oo la yidhaahdo dhinaca biological wordska marka loo akhriyana waxa la yidhahdaa carpals an ankle quraantana waa lagu arkaa oo dhinaca marka biological terminology loo akhriyana wax loo yaqaan maxay tarsilis baa lagu arkaa marka dhammaantood maxay sameeyeen waa movement imika lafta dhabarka ku taala ee vertebral column kaasi waxa laga yaabaa inay sameyso a little movement dhaqdhaqaaq kooban bay sameynaysaa wrist baa kamid ah marka halkaasi joints bay noogu jiraan joints-kaasi waxay sameyn kartaa upward and downward deedna movement-ka sameysa waa maxay aad buu xadidan yahay waxaa kamid ah quraanta oo ah tarsaliska markaa oo iyaguna iyo carpalska dhammaantood waxay sameeyeen waa maxay little movement bay sameynayaan waa maxay waa gliding joints-kaasi weeyaan ila soo arday ka ugu muhiimsan haddaba aynu qaadan doonaa waa kan aynu imika dul istaagayno waxaa la yidhaahdaa kan waxaan odhanaynaa waa maxay synovial joint baa la yidhaahdaa synovial joint ayaa la odhanaya synovial joints allows large degree of movement between their component parts kii hore muxuu kaga duwan yahay synovial joints wuxuu kii hore wuxuu ahaa movementkiisa ayaa koobnaa kani laakiin movementka ayaa aad u fara badan marka waxa uu leeyahay allows wuxuu ogolaanayaa baa lagu maxay large degree waxa waa maxay large degree of movement dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo between their component parts marka la eego qaybaha kala duwan ee ay ka kooban yihiin synovial joints waa maxay dhaqdhaqaaq dhinacyo fara badan u sameynaya the bones of the synovial joints are held together in a position by ligaments meeshooda waxa ku haya waxa loo yaqaan waa maxay ligaments baa ku haynaya markaas weey maxaa ku haynaya marka ligaments baa ku haynaya marka hal iyo jeer marka ligament la yiraahdo ligaments iyo tendons way kala duwan yihiin oo ligament iyo tendon markaan kala yiraahdo ligament iyo tendon markaan labada kelmaad kala eegno ligamentka waxa la yiraahdaa
ligament marka la yidhaahdo waa set attach waxa iyadu isku xidhaa baa la yidhaha waa maxay waa bone to bone sharaxa barta ku qorta bone to bone ligament haddaad maqashid laba lafood bay isku haya waa bone to bone tendons waa nuda yar ee dhooban iyaduna maxay isku haysaa waa muscle to bone muscle to bone waxay isku xajin doontaa waa maxay muruq iyo laf bay isku haya marka deedna waxa la yidhaahdaa the bones of synovial joints boneska lafaha synovial jointska ah waxa isku hayn doona waxa loo yaqaan ligaments ba isku haynaya waayo ligaments waxa isku hayaan laba lafood two bones ba isku haynayaan marka maadaama oo laba lafood ay isku haynayaan macnaha ligaments ama nudaha yar yar ee labada lafood arjawda yar ee naqan ee labada lafood isku haysta waxa la yiraahdaa ligaments baa la yiraahdaa marka the surface of the bone is covered with articulate cartilage xagga sarana waxa kaga dahaadnaan doonta waliba at the end dhamaadkana waxa kaga dahaadan arjaw baa ku dahaadan lafta dhinaceega waa taan ku soo marnay xagga hore waxa loo yaqaan articulate cartilage baa la yiraahdaa arday haddaba articulate cartilage marka la yiraahdo waa arjawda ku dahaadan each dhamaad kasta oo lafteenu ay leedahay ayay ku dahaadan tahay markaa which is smooth waa mid smooth ah oo siman and elastic waliba sida elastic oo kala jiidbasa weeyaan markaa the surface of the bone is covered with articulate cartilage marka waa smooth and elastic weeyaan marka the joint cavity is surrounded by tough capsule waxa iyada sidoo kale ku sii dahaadnoo doontaa cartilage kale ama membrane xuub baa ku jira isaguna oo la yiraahdo capsule tough ah waliba weeyaan marka adag weeyaan marka the inner surface of the membrane is lined by thin of synovial isagana waxa ka sii hooseynaya macnaha membrane-ka capsule-ka waxa gudaha uga sii dhex jira xuub yar oo la yiraahdo synovial membrane which secretes synovial membrane baa lagu leeyahay marka synovial membrane-ka oo which secretes oo sii deynaya muxuu sii deynaya waxa uu sii deynaya slippery fluid dareere silsilbanaya marka oo collid maxaa loo yaqaanaa waxa la yiraahdaa synovial fluid baa la yiraahdaa ekata synovial membrane-kii ayaa wuxuu soo saaray slippery fluid macnaha dareere slippery ah oo la yiraahdo synovial fluid waxaad ogtahay synovial fluid-ku dareerahaasi laba function ma qabtaa number 1 function-ka koobaad waxa la yiraahdaa wuxuu ka ilaaliyo wuxuu reduce gareeyaa friction-ka laftu marka saas oo kale ay tahay synovial fluid-ka friction-ka in labada lafta xagga ka imanisay iyo lafta xagga ka imisay labada lafood marka si ayna shaqar u sameeynin oo lafo ayna isku xoqin friction-ka ayuu reduce gareyn ama yareynaya laba shaqada labada qaban waa maxay lubrication area-da ku yaalay oo dhan waa maxay lubrication uu qoynaya marka shaqada ya qabanaya waxa qaban doona synovial fluid-ka qabanaya oo synovial fluid-kan shaqada qabanaya yaa soo daayay synovial fluid-ka aynu waxa soo deyn doona synovial membrane baa soo deynaya ka kale hadaba synovial joints are classified into the following groups iyaga laftirkooga waxa loo sii kala saaraa saddex group baa loo kala saaraa kow ball and socket joints waa ka koobaad weeyaan marka number 2 ka kale waxa loo yaqaan hinge joints baa la yiraahdaa iyo ka saddexaad oo la yiraahdo pivot joints hadaba inta ayna qaybaha kala duwan ayna gaadhin bal structure-ka aynu sharaxno lafteena iyo sida u samaysan tahay inagu ku eegi doono joints-ka hadaba waxa la yiraahdaa halka hore waxaanu ku soo qaadanay oo aynu maanta dhan sharaxnay ligaments-ki iyo cartilage-ki iyo synovial membrane-ki iyo capsule wixii dhan ma sharaxna marka deedna waxaanu sheegnay laftu marka structure-keegu markuu saas oo kale u samaysan yahay halka waxa inoogu taala waxa la yiraahdo ligament barta inoogu yaala halkan waxa inoogu yaala waxa la yiraahdo tendons ba inoogu yaala oo ligament-ka waxaanu ku sheegnay waa maxay wuxuu isku hayaa bone to bone isku hayaa tendon-kuna wuxuu isku hayn doonaa waa maxay muscle to muscle buu isku haynaya marka weeyaan halkan waxaanu ku haysanaa wax loo yaqaano capsule-ku waa halka inoogu yaala weeyaan waa membrane-ka deedna waa kan barta inoogu yaala waa fibrous capsule-ki weeyaan gudaha waxa ugu sii jira waxa la yiraahdo synovial membrane-ku isaguna waa xuubka weeyaan shaqadiisu maxay ahayd waa inuu sii daya fluid ama dareere la yiraahdo synovial fluid waa taynu function-kiisa laba ku sheegnay oo muxuu ahaa inuu yareeyo friction-ka u dhaxeeya lafaha inuu friction-ka yareeyo iyo laba inuu sameeyo waxa la yiraahdo lubrication way inta waxaanu ku soo gabagabayn doonaa xiisadeeni labaad ee maanta insha Allah ta'ala inta ku soo gabagabaynayna intaynu xiisad ku xigtaan ku kulmi doono amaana Allah